Majka sa jednim okom. hooyaday waxay lahayd hal il oo keliya waana nacay. waxay ila muuqanaysay cayb. waxay qaban jirtay shaqo culus si ay u taageerto qoyska. waxaa jirtay maalin maalmaha ka mid ah oo ay hooyaday igu soo booqatay dugsigayga dhexe si ay ii weydiiso xaaladayda. waan caybsaday inay igu timaado halkan. waan jaakiray waxaana fiiriyey fiirmo nacayb ah waana ka cararay. maalintii xigtay arday ka mid ah kuwa aan isku galaaska nahay waxa uu igu yidhi uuf hooyadaa hal il keliya ayay leedahay ma caybsanaysid miya. waxaan rabooday inaan gubo nafsadayda. waxaan kaloo jeclaystay in naftayda laga hor dhaqaajiyo hooyaday. sidaa darteed waan ka hor imid maalintaa waxaana ku idhi haddii faa'iidada aad u socotid ay tahay inaad iga qosliso oo keliya maxaad u dhiman weyday. hooyaday iima aysan jawaabin. xitaa ma aanan joojin inaan ka fikiro mararka xiga waxyaabaha aan dhahay sababtoo ah aad baan u xanaaqsanaa waana ka dhuglaa dareemaheeda. waxaan rabooday inaan sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan aan uga baxo gurigaas. sidaa darteed si adag baan wax u baran jiray waxaana fursad u helay in aan aado dalka Jarmalka si aan wax u barto. waana guursaday waxaana iibsaday guri waxaana yeeshay caruur. waana ku faraxsanaa noloshayda. marnaba lama xiriirin hooyaday. intaas kadib maalin maalmaha ka mid ah waxaa isoo booqatay hooyaday. sanooyin ima aysan arkin xitaa lama aysan kulmin caruurta ay ayeeyada u tahay. marka ay soo istaagtay albaabka wiilkaygii yaraa wuu cabsaday wuuna soo cararay. anigana uma aanan sheegin waxay iyadu tahay. waan ku qayliyey hooyaday. waxaana ku dhahay sideed ku timid gurigayga oo aad canugayga ugu cabsiisay. hadda ka dhaqaaq halkan. marnaba uma sheegin canugayga waxay iyadu tahay. hooyaday waxay iigu jawaabtay sidan iga raali noqo waxaan u malaynayaa in cinwaan qaldan aan ku imid. waana ay ka dhaqaaqday araggayga. maalin maalmaha ka mid ah warqad laga soo diray Bosnia ayaa gurigayga timid waxayna ka timid deriskayga. wuxuu ku soo qoray dariskayga qaaliga ahow waxaan filayaa inaad wanaagsan tahay oo aad caafimaad qabtid. waxaan kuu soo qaaday waajibaad aan adiga kugu wargelinayo taasoo ah in hooyadaa ay dhimatay. hooyadaa waxay i siisay warqad waxaana ay rabtay inay adiga ku soo gaarto hadday dhacdo waxyaabo iyada ku dhaca. marka adiga ayaan kuu soo diray warqadaas. waxaan bilaabay inaan aqriyo. wiilkayga qaaliga ahow waan kaa fikiraa waqtiyada oo idil. waan ka xumahay inaan imaado Germany oo aan ka cabsiiyo caruurtaada. aad baan ugu faraxsanaa markaan jaanis u helay inaan ku arko wiilkaygiiyow. maasha allah waa wiil wanaagsan. iga raali noqo inta aan kugu noqday wajigabaxnimada aan kala joogsiga lahayn markii aad soo barbaaraysay. ma og tahay markii aad yareed waxaad gashay shil waxaadna ku weysay ishaada. si hooyanimo ah waan u adkaysan waayey inaan kugu daawado adigoo ku barbaarayo adoo hal il keliya leh. sidaa darteed ishayda ayaan kuu bixiyey. aad baan ugu faraxsanaa wiilkayga kaa oo ii arkayo
adduunyada cusub, weliba ishayda iyo jacaylka hooyanimo. nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu inoo sheegay inaan adeecno Ilaahay iyo rasuulkiisa waqtiyada oo dhan. intaas kadibna hooyadaa, haddana wuxuu ku celiyey hooyadaa, haddana mar labaad wuxuu ku celiyey hooyadaa, mar saddexaad hooyadaa, markii afraadna wuxuu yidhi يجري الصغار